بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تعالى waxaan bilaabi doonaa sidii hore loo iclaamiyay tafsiirka quraanka kariimka ah. tafsiirka aan bilaabi doono insha Allah wuxuu noqon doonaa tafsiir ka gadisan tafsiiradii sidii ama dariiqadii hore tafsiirka loo akhrin jiray. waxaanu insha Allah ta'ala akhrin doonaa kitaab kutubada tafsiirka kamid ah, laakiin isagoo ka hadlaya aayadaha ahkaamta fiqiga ah kaliya ka hadlaya baan tafsiiri doonaa insha Allah ta'ala. كتاب كاس أولي له روائع البيان في تفسير آيات الأحكام أوليه شيخ لي هذا محمد علي صابوني إن شاء الله تعالى. أنت أينو مركا أينو قالين كتابك تفسير كآياتها القرآن كا وحن وحير هردع كسميننا تفسير كقرآن كا سودو كصوب بلودي فسر القرآن ككريم كا iyo noocyada kala gadisan ee mufassiriintu ay u qoraan tafsiirka quraanka baan insha Allah ta'ala in yar oo muqaddima aan ka sheegi doonaa daqaa'iq soo socda doo la yiraahdo. quraanku saan ognahay waa kalaamullaahi subhanahu wa ta'ala. macaanida magacyada uu leeyahay waxa kamid ah al-Qur'aan, waxa kamid ah al-kitaab, waxa kamid ah al-furqaan, waxa kamid ah ad-dhikr oo dhamaantood quraanka ay ku soo aroortay. culimadii muslimiinta ahaa عموما جود أهان مركا أي فسريان قرآن إلى صدح نوع أي أفسران، أما واحد لو قيبين كرا إلى صدح كوح أي لو قيبين كرا مفسرين تا مدارس كلا قديسان إلى صدح مدرسة أما سكول أو كلا قديسان أي وقيب سمان. مدرسة دا أما سكول كأهرية وحليها مدرسة الأثر باليرة هذا. مدرسة الأثر waxa loogu baxshay athar ku saad la socotaan wixii laga soo guuriyay nabiga iyo saxaabadii iyo dadkii hore tafsiirka markay fasirayaan aayadaha quraanka ah waxa ay ku fasirayaan aathar ama ahadiith marfuuca oo nabiga ka sugnaatay ama aathar mawquufa ala saxaaba ku ah ay ku fasirayaan saxaabadii iyo taabiciintii iyo maartay aimadii wax laga wariyay ay quraan ku fasirayaan. marka noocaas waxa la yiraahdaa tafaasiirta nooca loo habeeyay ama sidaas ku shaqeysa waxa la yiraahdaa at-tafsir al-ma'thur ayaa la yiraahdaa. madrasadaas ama kooxda noocaas u fasirta waxa ugu horeeyo imaam u ah imaamkii weynaa ee caanka ahaa la oran jiray Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala. waxa la yiraahdaa waa sayyidu hadhihi al-madrasa wa muqaddimuha, waa midka loogu hormariyo oo sayidku ah madrasada atharka kitaabkiisa aadka u nafciga badan ee caanka ah culumta faraha badan ay ku jirto. la dhaho xataa culimada islaamka in badan oo kamid ah dhaheen cidii ka dambeysay dhan isaga gadaashiisa ay ciyaal u tahay dhaheen ayuu alifay maaragtay kitaabkiisa tafsiirka. waana kitaab runtii aad qayim u ah oo ay ku jiraan macaani badan oo tafsiir ah, ay ku jiraan maaragtay aqwaasha culimada, ay ku jiraan maaragtay dhanka caqiidada, dhanka fiqiga, dhan walba uu maaragtay isagoo bil adilla keenaya oo runtii ku jamcinayo rahimahullahu ta'ala. ragga ku xiga madrasadaas oo iyaguna caanka ah waxa kamid ah kutubta madrasadaas tafsiirka Cabdiraxmaan ibn Abi Hatim al-Rasi oo isagoo ibn Jarir al-Tabari la waqti ahaa رحمه الله تعالى. wuxuu geeriyooday ibn Jarir al-Tabari wuxuu geeriyooday taariikhda hijriga ah markay ahayd 310. raazina wuxuu ahaa 317 isku waqti bay ahaayeen taqriiban. isagana tafsiirkiisa tafsiiru raasi isna waa madrasatu al-athar waa tafaasiirada ku warin quraan ku fasiraya ahadiithta iyo aathaartii salafka soo aroortay saxaabadii taabiciintii. تفاسيرته يقولون آت معركتي عنك أو مفسرين حق أثر كوحكو فسرته وحكمد تفسير كأولي إمام النسائي الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أو يسوون العصر هالفتجسوا صدح بقول يوحون ولا 303 أيو رحمه الله تعالى بولنتي يصل الله وقتي وهو لا عصري مفسرين مدرسة داس lagu tiriyo waxa kamid ah ibn Kathir rahimahullahu ta'ala tafsiirkiisa isna caanka ah
maaragtay aad iyo aadka qabuulkana muslimiinta uga dhex helay maaragtay inkastoo waxyaala israa'iiliyaad ay ku jiraan tafsiirka ibnu kathiir haddana waxa weeye tafsiir aad iyo aad qayim u ah laguna tiriyo madrasadaas madrasatu al-athar inuu yahay a'imadeeda raximahu llahu tacaala kutubta tafsiirka ee madrasadaas hore lagu tiriyo waa culummada ku fasirta qur'aanka bil-athar atharkuna waxa weeyaan axaadiistii oo qur-aanka lagu fasiro aqwaashii saxaabada aqwaashii taabiciinta wixii lamid ah waxaa ka mid ah tafsiirka imaamu albaqawi raximahu llahu tacaala isna aad iyo aad ayuu muhiim u yahay waa kitaab aad iyo aad muhiim u ah waxaa la dhahaa durur almanhuur fi tafsiiri bilma'huur baa la yidhaahdaa waana runtii tafsiir aad iyo aad u wanaagsan waxaa soo khulaasiyey kitaabkaas imaamu shawkani raximahu llahu tacaala kitaabkiisa fatxulqadiir la yidhaahdo waxa uu soo khulaaseeyey baa layidhahdaa tafsiirkii adurur almanhuur oo uu lahaa imaamka weyne maaragtay uu lahaa imaam albaqawi marka aljalaal asuyuudi raximah llahu tacaala cafwan jalaal asuyuudi ayaa durur almanhuur iska leh wuxuu soo khulaaseeyey saddexdaa imaam midba midka kaluu sii khulaaseeyey tafsiirka imaamu albaqawi waxaa khulaaseeyey imaamu suyuudi jalaaludiin asuyuudi markaasu wuxuu ku magacaabay kitaabkiisa addurar almanhuur fi tafsiiri bilma'huur isaga kiisiibaa maaragtay shawkani isna uu sii khulaaseeyey ayaa la yidhaahdaa wallahu aclam marka madrasadaas waxaa la yidhahdaa madrasatu bil-athar ayaa la yidhahdaa qur-aanka maaragtay ku fasirtay madrasada labaad waa madrasatu alra'yi baa la yidhaahdaa oo ra'yigu macnaheedu ma ahan maskaxdooda wixii kusoo dhacay inay qur-aan ku fasirayaan sida dadka qaarkood laga yaaba inay u fahmaan waxa weeye iyaga oo ictimaadaya aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo axkaamta laga istimbaadaya naska iyagoo luqadda carabiga iyo ictimaadaya ayay axkaamta fiqiga ayay ka istimbaadayaan aayaadka qur-aanka bay ka istimbaadayaan marka madrasatu bira'yi saasaa loogu baxshay kutubta ugu waaweyn waxaa ka mid ah oo ugu horeysay kitaabka ibnu catiya oo la yidhaahdo muxarar alwajiis tafsiir alqurdubi imaam alqurdubi ayaa ka mid ah kitaabkiisa caanka leeyahay aljaamicu liaxkaami alqur'aan la yidhaahdo waana kitaab runtii aad iyo aad iyo aad muhiim u ah tafsiirka qur'aanka iyo fiqiga labadaba jamciyey madaahibta culummada oo dhan buu soo naqlinaya weliba adilada ayuu muqaaranaynaya raximahu llahu tacaala waxaa ku xiga oo tafaasiirta madrasadaas ka mid ah madrasatu bira'yi tafsiirka la yidhaahdo maaragta uu leeyahay imaam ibnu jawsi raximahu llahu tacaala isna tafsiirkiisa waxaa lagu magacaabaa zaadulmuyasir zaadul baa lagu magacaabaa waa kitaab isna aad iyo aad runtii aad u qiimo badan kutubta madrasadaas ama iskuulkaas tafsiirka qur-aan ku fasira bira'yi oo bira'yina waxaanu niri ma ahan inay madaxooda waxa ka keenaan waxa weeye aayaadka qur-aanka ahayd bay axkaamta ka istimbaadaya iyagoo luqadda carabiga qur-aan kusoo degay ictimaadaya waxaa ka mid a kitaabka uu leeyahay imaamu almawardi ee la yidhahdo annukat walcuyuun la yidhaahdo isna kitaab aad iyo aad u qiimo badan weeye kutubada madrasadaas ah waxaa ka mid ah kitaabka albaxru almuxiid oo ibnu xayaan alandalasi uu leeyahay raximahu llahu tacaala waxaa kaloo ka mid ah kutubada iyaguna aad muhiimka ah kitaabka imaamu fakhru raazi oo la yidhaahdo maaragtay atafsiir alkabiir waxaa kaloo uu caan ku yahay mafaatiixu lqeybna waa la dhahaa waa runtii waa tafsiir isna aad muhiim u inkastoo waxyaalo badan oo caqlaaniya iyo falsafo badan iyo jadal badan uu ka buuxiyey qofka loo baahan yahay inuu aad iyo aad uga digtoonaado waxyaalaha noocaas oo kala waxyaalaha caqliyaadka iyo waxyaalaha noocaas inuu aad uga digtoonaado loo baahan yahay haddana waa tafsiir runtii muhiim ah weliba wuxuu aad iyo aad muhiim u yahay xagga mustalaxaadka uu keenaya iyo culumta aadka u faraha badan ee ka buuxda kutubta madrasatu ra'yi kutubta tafsiirka ee madrasada hore lagu tiriyay waxaa ka mid ah kitaabka caanka ee alkashaaf la yidhaahdo uu leeyahay imaamka weyn zamakhshari la yidhaahdo uu leeyahay raximahu llahu tacaala runtii usluub aad iyo aad u wanaagsan ayuu qaaday oo uu ku cadaynayo dalaalaadka aayaadka qur'aanka siiba cilmiga leeyahay cilmu lbalaaqa iyo alicjaasu allafdi ayuu aad kitaabkaas ugu fiican yahay laakiin maca dalika waxa uu aad uga buuxiyey madhabkiisa muctasiliga ah sheekhaas madhabka muctasiliga ayuu aaminsanaa marka afkaarta ictizaalka ayuu aad uga buuxiyey marka qofka taalibulcilmiga inuu ka digtoonaado siba baab alcaqiida markuu marayo ayaa loo baahan yahay waxaa isaga
kitaabkiisa koobiyey oo ka qaatay laba sheekh oo dariiqadiisii ku socday oo wixii wanaaga iyo wixii xunba uga dayday ninka la yiraahdo Baydawi iyo Abu Saud labaduba kitaabkoodu waxa la yiraahdaa Zamakhshari bay ka qaateen baa la yiraahdaa wallahu a'lam marka dariiqadii ninka horeyna ku socdaan marka madrasadaas madrasatu ar-ra'y ayaa la yiraahdaa waxa jirta ama intaynu wali aanu ka bixin madrasadaas kutubta kale oo caanka ah oo madrasadaas kamid ah waxa kamid ah hadayta waan sheegnay kitaabka Baydawi iyo kii Abu Saudba laakiin labadoodaba in laga digtoonaado fi baabi ta'wiilaad badan baa ku jira aad iyo aad baab aayaat sifaat oo dhan way ta'wiilinayaan aqeedo al-sunna wal jamaa kuma socdaan baab al-aqeeda markii la marayo marka qofku inuu ka digtoonaado waxaan u sheegaynaa kutubadaas oo dhan waxa weeye waa kutub tafsiir oo muntashir ah marka ilaahay kitaabkiisa ba kaamil ah subhanahu wa ta'ala waxyaalo badan oo akhtaa ayaa ku jirta waxyaalo badan oo aqeed ahlu sunna ay ku khilaaf karaan baa ku jirta waxyaalo badan oo faa'iidana way ku jiraan marka qofka muslimka waxa loo baahan yahay inuu wixii faa'iida iyo wixii khayr oo ka faa'iisto waxa kalena laakiin in looga digo oo ogaado ayaa loo baahan yahay kutubada kale oo muhiimka waxa kamid ah kitaabka Imam an-Nasafi isaguna tafsiirkiisa oo mulakhas runtii ah mukhtasar oo aad u kooban oo aad u xawilay istinbaad في القرآن إنه أحكام تكسو استنباطه لكن نفس الإشكال كي هوري أي كل عين علماء هوري أي سنة كل عين تأويل بعض آيات الصفات آياتها القرآن كآيات الصفات كأي تأويلين يا قاركود أو معاني دي معركتي أهل السنة والجماعة سلف أي كفسرين معانيها هين كذا أي واحد لمدة كتب آت مهم كوا رنتي أنا قدام الصوماليين آت لو آخرستو عانك وحكمية تفسير الجلالين تفسير الجلالين لبا إمام آد ياد وين وعانها أيا قري جلال الدين معركتي المحلى جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى لبدا شيخ كتاب كودنا وكتاب رنتي آد ميسر أو كوبا حتى علماء قاركود وحي أي سمين شيرين قرآن كمركة حفظين يعني إيه ليه حفظين شيرين معنيسة وهذا أركتين هذا حتى كتب عصب أو قدال لقى دبعي قرآنك هوامشتيس ayaa lagu qoraa jalaalayinka kitaab masxafka yarka haamishkiisa yani geesiisa footnote-ka ayaa waxa lagu qoraa maaragtay tafsiirka jalaalayinka yani waa tafsiir aad iyo aad u kooban oo aad iyo aad mulakhas u ah oo aad iyo aad maaragtay qofka macaani badan ay ku jiraan runtii waxa bilaabay markii hore Jalaaluddin al-Muhalla waxa uu ka bilaabay suuratul kahf ila qul a'udhu birabbinas uu geeyay marka kadib faatixana سورة الفاتحة إساقا فصيري مركا كدبنا وحا بلاوي الله أنه حارس مركو قيريو وحا بلاوي جلال الدين السيوطي إسنا وحو كسو بلاوي بقر وكسو بلاوي إلى الكهف أيو كان ماشي شيخ هوري وكبلاوي رنتين وكتاب آد قديم قيم وآد لوغا فايس إلهينا قبول ذاتك مسلمين دحوضا لغاي كتبت كله أو آد كمدرسة رأسا رأيها تفسير القرآن بالرأي اللي فسر أيه رأينا واحد نرمر وربا يعني إن كان إمام كا أو عالم كا أو شيخ أو علومتي إسلام كأخرستي فقه جدي لغة جدي أصول فقه جدي أحاديث النبي أيه القرآن كي وحكو كسو استنباط يا أحكام وحنا كفسر يا سو لغة القرآن كعربي قاعد سنة أيه كفسر يا كتبت معاصرة oo runtii madrasadaas raacsan ama iskuulka raacsan waxa kamid ah tafsiirka uu leeyahay ninka Sheekh Ali Jamaluddin al-Qasimi uu leeyahay runtii tafsiir isaguna aad qayim u ah weeye kutubta kale oo raga maaragtay dambe iyaguna ay alifeen waxa kamid ah tafsiirka uu leeyahay Maxamed Tahir ibn Ashur waa kitaab aad qayim isaguna waa tahriir wa tanwiir la yiraahdo tafsiir wanaagsan weeye runtii aad qofkii طالب cilmi oo ka faa'iideysan kara loo baahan yahay in uu ka faa'iideysto kutubta kale oo iyaguna runtii quraanka fasirtay oo muhiimka iyaguna ah waxa kamid ah tafsiir uu leeyahay nin sheekh ah oo aad caan oo isna waa leeyahay Abdurrahman Saadi oo maar kitaabkiisu runtii waa kitaab aad qayim u ah wuxuu soo lakhisay tafsiirka Imam Qurtubi ayuu soo lakhisay إضافات بدن وفوائد بدن أو كسو نقليي ابن قيم رحمه الله تعالى أيو كدري
tafsiirkaas isaguna waa tafsiir runtii aad iyo aad muhiim u ah loona baahan yahay qofka طaalib cilmiga ee tafsiirka akhrisanaya in uu runtii uusan u daymo la'aan inuu ka faa'iideysto tafaasiirta muhiimka ah dadku aysan in badan oo kamid aysan aqoon laakiin aad iyo aad muhiimka u ah oo tafaasiirta mucaasirkaana lagu tiriyo maxaa yeelay dhowaan buuba dhintay Allah u naxariisto wadaadka alifay waa tafsiirka la yiraahdo adwaa'u albayaan adwaa'u albayaan baa la yiraahdaa waxa qoray sheekh caan ahaa oo la oran jiray maxamed al-amiin ash-shanqidi rahimahullahu ta'ala xaqiiqada runtii sheekhaas markuu kitaabka uu alifay waana kitaab aad iyo aad dakhmi oo aad u weyn markuu alifayay ulama uusan jeedin in uu tafsiir alifo ulama uusan jeedin waxa uu ula jeeday in uu fasiro aayada quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قرآنك يتنوع عيسى يسوع قرآنك اسكو شبهه يسيد قاركس قارك الأفصير أيوه يسيد قاركس قارك الأبيانين أيوه الروي شيخ رحمه الله تعالى إنه عديه شيخ رنتي كتابك إن بدن أيو ماركتي سيبا مركو مري سورة الأعراف aad iyo aad wuxuu u xeel dheeraaday usul fiqiga oo ila kitaabku isku bedelay usul fiqi isku bedelay waxa uu aad u sugay ithbaatu alqiyas wuxuu aad u radiyay maaragtay daahiriyada iyo cidii madhabka ku tagtay suuratul hajj markuu marayay mesela wuxuu aad iyo aad uga hadlay xajka iyo ansaakta iyo ahkaamta xajka iyo qaybada kala gedisan ila dhawaan aan arkay yani kitaab weyn oo dakhmi ah oo laga soo naqliyay maaragtay adwaal bayaan oo isagu kaligiis ka hadlaya xajka oo maaragtay laga soo naqliyay oo laga soo guuriyay adwaal bayaanka sheekhu wuxuu aad iyo aad runtii kitaabkiisu mutaathir oo ku yahay dariiqada imaam al-Qurtubi oo ahayd in la xoojiyo ahkaamta fiqiga laakiin isagu ahkaamta fiqiga wuxuu Qurtubi uga gadisan yahay aayadaha quraanka ee aayadaha kale quraanka ay fasirayaan ayuu kitaabka ku xoojiyay bas aayadaas kala fasiraysa aayadaas kala tafsiirisa aayadan waa mujmal taas ayaa mubayyin ka dhigtay tan waa mudlaq taas qeyday ama tan waa qeyd taasna waa caam marka aayadaha quraanka ayuu isku celcelinaya waa kitaab aad iyo aad runtii u faa'iido badan qof kastoo طالب cilmiga oo raba inuu tafsiirka quraanka uu bartana loo baahan yahay inuu kitaabka u noqdo hatta wuxuu sheekhu uga hadlay mabaaxith ama abwaab culumadii hore aysan ka hadlin وعلماء هورو أنو كهذا إنه قرطبي ابن جرير الطبري رجع هورو سلف كايو قرني صدحاتي قرني أفرادي قرونتي ولا دوان نولا نين كان هادو نولا قرني كان هذا معركتي أن كترنا أيو نولا هذا وحي موتين يعني تقريبا 60 سنة كل دواد أيو موتين هاي مركا أبواب آد مهمة أو دقيقة أيو إن بدن كهالله أو معركتي أو علمي أو لأن فقه كأ مباحث بدن oo runtii qofka muslimka uu baahan yahay ayuu aad uga hadlay xagga usul fiqiga xagga xataa maaragtay علاقاتka duwalka islaamku ay la sameeysanayaan wadamada kale qawaaniinta wadciga uu ka hadlay al-hukm bi ghayri ma anzal Allah ka hadlay علاقات مع الدول la sameeysanaya kaafirada علاقاتka la sameeysanayo ka hadlay العلاقات الدبلوماسية ayuu ka hadlay tafsiirkiisa uga hadlay iyo ahkaamteeda kitaabka Ilaahay wax laga qaadanayo qawaaniinta duwalka islaamka khasabka looga saxay sida mutaxida iyo qawaaniinteeda kale ayuu uga hadlay waxaas oo dhan buu uga hadlay kitaab runtii aad iyo aad muhiim u ah weeye mabaaxith badan oo zamankeena khusaysana oo runtii uu aad uga hadlay sheekhu rahimahullahu ta'ala saasoo kale kutubta markii tafsiirka la rabo in laga hadlo ama kutubada tafsiirka in la xuso loo baahan yahay in la xuso ay muhiimka ay tahay inkastoo aan ogahay dadka qaarkood inaysan ka helin laakiin aysan ahayn macnuhu waan ka helay iyo kama helin ay tahay macnuhu faa'iidadu meeshii ay ku jirto in dadka loo bayaaniyo waxa kamid ah kitaabka uu qoray sayid qutb rahimahullahu ta'ala ee dilal qur'aan runtii waa kitaab aad iyo aad u wanaagsan isaguna sidii sheekh hadda aan ka sheekeynay maxamed amiin shanqidi rahimahullah uusan ula jeedin kitaab tafsiir inuu qoro ayuu waxa la yiraahdaa sayid laftigiisu inuu kitaab tafsiir qoro uusan ula muusan jeedin wuxuu ula jeeday in uu qur'aan ka soo saaro
awjahda ama wajiyaalka fikriga ee qur-aanku cadaynaya ee thaqaafada islaamka ah inuu buruus ku sameeyo ama wuduux ku sameeyo oo dadka u muujiyo saasaa la yiraahdaa maca dalika xabsiga ayuu badankiisa ku alifay markii uu xabsiga ka soo baxayna muraajaca ayuu ku sameeyey raximahullah waxaa la yidhahdaa isagoo suuratu alxadiid markuu muraajacada marayey ayuu geeriyooday markuu marayay ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala iclamuu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله آيات أمركم مريي أيو جيريودي رحمه الله تعالى كتبت كلو آيات كأنفع بدن ضدك طلاب العلم تفسير كاهتمام كسية أي إني برتان على الأقل هذه سنة آخرين أي أقادان لو بهن يوحى كميد تفسير ليرادو المنار تفسير المنار waxaa iska lahaa sheekh isna mucaasir ahaa oo la oran jiray Rashid Rida rahimahullahu ta'ala Rashid Rida kitaabkiisu waa kitaab runtii macaarif badan ama aqoon badan oo waxa ku jirta aqoonaha kala gadisan maaragtay macluumaadka kutubta islaamiga ku jirta oo dhan badankeeda oo ku kala firiirsan tahay ijtihaadaad badan ayuu leeyahay oo khaas u ah markii u horeysayna waxa la yiraahdaa Rashid Rida sheekha la yiraahdo laba marxalo ayuu soo maray marxaladii hore waxa uu mutaathir ku ahaa sheekh shuyuukhdiis kamid ahaa oo Maxamed Cabdo la oran jiray oo fikirka aqlaaniga isaga iyo Jamaaluddin Afqani iyo ragaas fikirka aqlaaniga nusuus in aqliga lagu fasiro ayay aaminsanay marka Maxamed Cabdo ayuu ka uga ta'athuray baaliya Rashid Rida wuxuu ku ta'athuray Maxamed Cabdo walidaalka tafsiirka qaybtiisa hore waxyaalo badan oo aqlaaniyaad ayaa ku jira laakiin markii dambe 90 degree ayuu dhanka kale isku bedelay nin aad iyo aad salafi u ah oo madhabka maaragtay ahlus sunna wal jamaa ku toosan ayuu noqday oo runtii ku fasira maaragtay wuxuu aad iyo aad ihtimaam u saaray daraasada inuu daraasayo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo takhriij ahadiith rasuulillah sallallahu alayhi wasallam waxaana markii dambe uu noqday isaga wuxuu noqday madraso lagu ta'athuro oo ragii kadib ka qaatay oo ku ta'athuray waxa kamid ah culimo waaweyn oo kadib culimada xadiidka noqotay ama culimada xarakaadka islaamiga ee maanta caalam islaami ka jira ragii maaragtay muassinta u ahaa مثلا علماء أهل الحديث كنت أثوري وحكى منها شيخ وينعانك أحمد شاكر رحمه الله تعالى رجع كلا وحكى قاطي رشيد رضا وكنت أثوري وحكى منها حسن البنا وها رحمه الله إسنا رجي اللي في أما رجي أساسي مؤسسته وها حركة الإسلام كا وين وحركة الإخوان المسلمين رجي أساسي رجع كنت أثوري بكمدها محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى مركز لما أنتوا ضحية هاي رجع أحمد شاكر iyo حسن البنا iyo رشيد رضا rag xadiidka iyo maaragtay aad maaragtay u saara maaragtay diirada u saaraya ahaayeen rahimahumullahu ta'ala dhamaantood marka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay tafsiirul manar isaguna labadaas madraso marka madrasana waxa la yiraahdaa madrasatu al-athar waa tii hore aynu xusnay madrasada kalena waxa la yiraahdaa ama iskuulka kale waxa la yiraahdaa madrasatu ar-ra'y waxa jirta marka waana meeshaan u soo soconay oo kitaabka aan bilaabi doono oo labada madrasa midna ma aha ama labada iskuul midna ma aha madrasa kale oo u dhaxaysa ayaa jirta oo la yiraahdaa madrasatu at-takhasusiyya fi tafsir kitabillah oo iyagu waxa ay xoog saaraan jawaanib khaas ah ayat khaas ah مثلا آياتك عقيدة وكله آياتك أحكامته وكله آياتك سلوك يا آدابك كهالله وكله مدرسة داسنا يجونا كتب إلهاي رجي هور يرجي دمبابا رجي هور وحكم ده إمام البيهقي إمامكم محدث كعنكا وحو جمعية كتاب أحكام القرآن اللي يراهدو إمام الشافعي ولها أيو جمعية مركز كدي وحا يمد ورجع يجونا أحكام القرآن كوحق قرآن عنكا وحكم ده إمامك وين حنفي عانك إمام الجصاص اللي يراهدو
isaguna kitaab wuxuu leeyahay la yiraahdo axkaamul qur'aan runtii masaa'il badan oo fiqhiya ayuu aad iyo aad uga buuxiyay oo ka istinbaaday qur'aanka kariimka ah oo ka istinbaaday in badan maaragtay waxa uu aad iyo aad maaragtay u xoojinaya oo u rajaxaya madhabka xanafiga marka waa kitaab isaguna aad iyo aad muhiim u ah kutubta aad iyo aad muhiimka oo aayaadku axkaam ka hadla waxa kamid ah kitaabka caanka uu leeyahay imaamu ibn al-arabi abu bakr al-qaati isna wuxuu leeyahay kitaab axkaamul qur'aan runtii waa kitaab isna uu axkaam badan oo fiqiga ku soo istinbaaday oo kala soo baxay kitaabka ilaahay waana kitaab aad qayim u ah kutubta ku socota namtigaas ama dariiqadaas ee ah mutakhasiska ah waxa kamid ah kitaab aayatul ahkaam uu leeyahay imaam as-suyuuti ayaa kamid ah oo al-ikliil la yiraahdo isaguna runtii waa kitaab yar xajmigiisu laakiin faa'iidooyin aad iyo aad u badan ay ku jiraan marka saddexdaas madraso ayaa ugu caansan kutubta tafsiirka qofka طالب العلمiga markuu rabo inuu tafsiirka barto waxa loo baahan inuu og yahay kutubada tafsiir ra'yiga la yiraahdo kutubada la tafsiir al-ma'thur la yiraahdo iyo kutubada mutakhasiska ee janib khaas xooga saaray inuu og yahay kitaabka marka aynu bilaabayno oo aayatul ahkaamka darsigeena maanta aynu bilaabi doono insha Allah waxa uu kamid yahay madrasadii u dambeysay oo aayatul ahkaam magaciisana waxa la yiraahdaa rawaa'icul bayaan fi tafsiri aayatil ahkaam min al-Qur'an waxaana iskale sheekh nool kulli nool baan ku ogaa la yiraahdo maxamed cali saabuni rahimahullahu ta'ala waxaan u dooranay dariiqo wuxuu ku socdaa kitaabku shakl muhaadaraat oo runtii luuqa muyassar ah oo u fudud qofka طالب cilmigaana uu ku soo koobaya waxa uu xooga saaraya maaragtay ahkaamta fiqiga ayuu xooga saaray walidaalika sidii hadaayta aan muqaddimada aan ku sheegnay tafsiirkeenu uu ka gadisnaan doonaa سيالي هوري أو تفاسير الله آخرين شلو تفسير كإن لقى صوب بلا سورة الفاتحة بقرة إلى قل أعوذ برب الناس نقول وحن أركض دوننا بود دونه وحن بود إن آياتها أحكامها فقهية إن شاء الله تعالى طريقة أن كسر عن دونا وحن نقول دون تأسيس صوت مركو رئيسة وحن كبلا بدونا إن آيات القرآن كآخرينه هدو إلهي إله سبحانه وتعالى مركز كدب مركان آخرينه آيات القرآن كأيان سيد عادة هيد وحن كترجم دونا لقد الصومالي أما لقبض ويحل أورنشري سيدتك الصومالية أيوة فايدستان هاد مركا waxaan ku xijin doonaa insha Allah ta'ala asbaab nuzul ka aayadaha sidii asbaab nuzul oo sheekhu sheegay ay jirto iyo bacd lataa'if meela qaarkood oo runtii u baahan in la muujiyo oo ama faa'iido ku jirta iyo wax la mid ah markaas kadib qaybta ugu muhiimsan ee aynu ku nuxnuxsan doono aan highlight gareynayno waa qaybta fiqiga oo waxa aan cadeyn doonaa ahkaamta fiqiga ee aayaadkaas aan akhrinay laga soo istinbaadayo markaas kadibna waxaan ku khatimi doonaa insha Allah ta'ala ma yustafaadu min al-aayat aayaadka aan maanta daraasaynay waxyaalaha laga soo istifaadoonay ama laga soo qaadanayo ayaan maaragtay waqtiga wax yar baa haray baan rajaynayaa waxaan ku buuxinaynaa mabda kasta ama cilmi kasta marka la bilaabayo علمي أما فقه هذا أما أصول فقه هذا أما نحو هذا أما بلاغة هذا أما تفسير هذا أما مصطلح هذا علوم الإسلامية علوم الإسلام كوحة عادة وهيد إن الشيء مبادئ 10 طبعا مبدأ وعلمي أوليه هاي وقاركود حتى بيت شعر أي أما قوي أي كسو كوبين إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم ثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم والاستمداد وحكم شارعي مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز شرفا ومعناه ذو علمي كستا مركي لا اخرين يتوانكا شيء هورتا وين لا شيء الحد حد علمي هورتا ان ديفينيشن كيس اما تعريف كيس ان لا شيء اما لقيحو مركي علمي يعني ما انت بلاب انه علم تفسيرك waxa la yiraahdaa waxa lagu soo koobaa xadkiisa ama taariifkiisa هو علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله وما يتصل بها وعلم lagu baarayo معانيدا كلامك إلهي سبحانه وتعالى iyo wixii la xiriira ama waadicuhu waadiciisu cid ooriso dajisay baa loola jeedaa runtii tafsiirku wuxuu gudsan yahay culumta kale oo islaamiga waxa laga yaabaa qof sheekha inuu u horeeyo oo bilaabay laakiin tafsiirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga bilaabay oo quraanka qaarkiis qaar kale ku cadeeyay markaas kadibna nabi maxamed ayaa cadeeyay sallallahu alayhi wasallam oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu quraanku wuxuu ku sheegay
نبي محمد بوحو كوير وحبها اسكو مرجين أنا قاعدين لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أنا بيانين عديننا بإلهي سبحانه وتعالى نبي محمد إلهي واتي كويري وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم نبي محمد إلهي سبحانه وتعالى مهمة سوحة كم إذا هيد تتك إنه وعدي مركز تفسير كبلوجيسة وحأوهري الله سبحانه وتعالى عدي marka kadib nabi maxamed baa cadeeyay nabi maxamed markii uu intuu noolaana saxaabadii ayuu cadeeyay kadib markii uu nabi maxamed geeriyoodayna sallallahu alayhi wasallam saxaabadii waxa ka soo baxay saxaabo aad iyo aad mashhuuriin oo mufassiriin ah sida al-khulafa al-arba'a sida Abdullah ibn Abbas oo lagu magacaabo tarjumaan al-Qur'an sida Abdullah ibn Mas'ud oo runtii ahaa maaragtay aad iyo aad nin maaragtay xagga tafsiirka ugu dheera sida Abdullah ibn Umar sida Ubay ibn Ka'ab sida Muaad ibn Jabal ragaas oo dhan waxay saxaabadii mashaahirta ahaa ee tafsiirka caanka ku ahaa ayay kamid ahayd kadibna taabiciintii ayay mid walba rag buu aflixiyay oo tafsiirka uu baray mesela waxa la madrasatu ahlu makkah talaamiidi ibn Abbas ayaa ka aflaxday oo taabiciinta rag ugu mashhuursanaa waxa kamid ahaa Mujaahid ibn Jabr in badan aad ku maqashaan maaragtay qaala Mujaahid kada aad maqashaan طلابتي وحو كميد ابن عباس وحا كميد عطاء بن أبي رباح وحا كميد طاووس بن كيسان أما مدرسة أهل المدينة زيد بن أسلم با كميدها أبو عالية يا كميدها تابعينتي محمد بن كعب القرطي يا كميدها مدرسة العراق يجانا رجع تابعينتها يا كعف لحي وحا كميدها سعيد بن جبير وحا كميدها عامر بن شعبي با كميدها قتادة بن الدعامة ayaa kamid ah ragaas oo dhan taabiciintii kutub tafsiirka ama athurka marka akhrisatidna waxa arkaysaa mar walba in leeyahay qaal ibn Abbas kada qaal ibn Mas'ud kada ama taabiciinta qaal Mujaahid kada qaal Sha'bi kada tafsiirta ma'thurka markaas kadib muqaddimada labaad cilmiga tafsiirku macaanida uu ka hadlayo ama cilmiga uu ka hadlayo mawduuca uu ka hadlayo وآيات القرآن يا عدينت العدين يا آيات القرآن نسبته إلى غيره من العلوم مركي لقاها اللينا هذا تفسيرك وأفضل العلوم وهي حاجة فضل جسم مركي لقاها الليو وأفضل العلوم حي كتابك إلهي أي العدين يا وأنا رنتي كتاب وأنا علمي آد مهم لو نبهن يدك مسلمين برتان بل فرض كفاية وهدي معركة dadka muslimiinta ama magaalooyinka muslimiinta kamida qof kitaabka Ilaahay macaaniisa cadeeyay hadii laga waayo ya'thamun marka fardu kifaaya in la helo dadka muslimiinta marka maanta insha Allah ta'ala muqaddimadaas inta ayaan ku soo koobayna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa billahi tawfiq